marka qandhana meel bay iga karkarinaysaa saa waxaan siri waxaan xanuun noocaana weligay ima qaban ma ogti tan waa tii kugu dambeysay adduunyo kaga aruuri lahayd baan siri waa taa kaga dhammaan lahayd markaasaan ilaahay baan bari waxaan ku yiri ilaahayow hadday tahay tii igu dambeysay adduunkan kaga aruuri lahaa ilaahu naftaa igu dhibin baa ku yiri allaha u naxariistee waxaa caawa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku geeriyooday abwaan Cumar Cabdiwaaxid Aadan oo loo garan og yahay abwaan geesi ayaa muddo 7 ah ku jiray isbitaal isagoo u geeriyooday xanuun dhanka caloosha ah oo uu in muddo ah la xanuunsanayay sida uu BBC-da u sheegay abwaan Cabdishakuur Maxamed oo ay marxuumka qaraabo ahaayeen isla markaana ay isla shaqayn jireen abwaan geesi ayaa ahaa abwaan iyo jilaa aad loogu yaqaano riwaayadaha muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu ku noolaa qaybo ka mid ah Soomaaliya labadii bilood ee ugu dambeysay ayuuna ku soo laabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya allaha u naxariistee abwaan geesi waxa uu ifka kaga tagay 4 caruur ah waxaana u soo tacsiiyay dhammaan dadka Soomaaliyeed iyadoo ay geeridiisu wada taabatay guud ahaan dadka Soomaaliyeed muuqaalkan oo la baahiyay goor dhaweyd ayaana loo xaqiijiyay in maalmo ka hor inta uusan xanuunka la dhuldhicin abwaan geesi muuqaalkan laga duubay waxa weeye 8 bari wixii iga dhignayd midda 8 sano oo kale bay iga dhignayd 8 bari si handul ku rooyay magaranaysaa marka waxa weeye waxaan rabaa inaan halkan idinku sheego idinku soo gudbiyo wixii saaxiibayaal in kaga maqnayn meel kale in kaga maqnayn xanuunkaas ayaan kaga maqnaa hadda waa soo xafaaroobay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaad u soo fariistay famkaadi dhamaan way arkayaan dadka fiigan waa soo xafaaroobay codkan kaliya codkii bay bedeleen codkii baan soo noqonay moodka ka soo baxay aniga hadlaya ma garanaysaa marka ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وصورنا يا وحان رجينا عافمات كينا سفع عنو سو نقضو وحوي مقرنا صاحب إذن كنو يسو دعوية صاحب يال داد بدانو آدي جعل با هندو الكورو يهي لما هادا صحابو يسو عيان قيسيو معاقو دعي فيلنكي آوي هندو الكورو هدي تاي فيسبوك هدي تاي واتساب هدي تاي ملو البداد كيلا سو حريريان وفيلنكي معاقو دعي managa kala jirtay minta kaliya noogu joojisay maxaan kaaga dhacay gudleeyay markii in kama joojine xasaas aan kaga maqnaa saaxiibayaal waxa weeye aniga xaalad kale ku jiray aniga yaa Allah ku jiray ma garanaysaa waxa weeye marka hadii la ku rooyay haliisu duceey saaxiibayaal in hadii la ku rooyay faqatax ilaahay si inta xanuunsan oo dhan xanuunka ilaahay ka dulqaado inta caafimaadka qabtana oo caafimaadku sidiyaadiyo والله waxaan soo xasuusta heesti handuu la ku roon yahay ay caafimaadka handuu la ku roon yahay iyo curyaanka iyo heesti ka hadlaysay oo ma garanaysaa qof walba wuxuu haystaa qofka kala garan heesti ahayd farxifiska qaaday heestaas waan soo xasuusta marka waxa weeye tan kale markaas anoo soo jeeda baba waxaan handuu la ku roon yahay balay handuu la ka sheekeynaya wayaabani أنا سوتشيدا وحنونك وحاسمه كتي هدول الكور روياي بلاي ساس وعير سنة بلاي قرب بلا أنا بلاي يقول عشان سنة سامح سيري ميا وارد موالي بصوتها معرضتها ملوك سحري ما هدول الكور روياي حالة وسيري على شو موقته وماكينة مرنا أنا وحيقول عشان سنة مرنا أنا أسلا شيء سنة